madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa ka qayb galay sanad guuradii 23aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidamada qaranka Soomaaliland munaasabadani oo ka dhacday taliska guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland ugu horeyntii madaxweynuhu waxa uu salaan ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka Soomaaliland intii ay munaasabadu socotay waxa goobtaasi ku sugnaa mas'uuliyiinta saddexda xisbi qaran wasiiro saraakiil ka tirsan ciidamada qaranka iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxa munaasabadaasi ka hadlay taliyaha ciidanka qaranka Sareeyo Guud Nuux Ismaaciil Taani ciidanka qaranku wuxuu la kowsaday dawladii labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland yeelato ee lagu soo dhisay Boorama 1993 waqtigaa waxa jiray ciidan beeleedyo ku filqsan gobolada waxay dawladii golayaashii odayaashii iyo indheergaradkii dalku u guntadeen sidii ciidan qaran loo abuuri lahaa sida ayaa lagu abuuray guutadii koowaad iyo guutadii labaad oo lagu saleeyay saamiga guurtida meel kastaba ay ku leedahay ciidanka qaranku tallaabooyin la xaadle oo waaweyn ayuu qaadayay waxa ka mid ahaa sidii maamulka dawladnimada loo fidin lahaa ee gobolada loo gaarsiin lahaa wasiirka gaashaandhigga Master Cadami ugu dambeyn waxa munaasabada ka hadlay insha Allah inuu sii fadhiyo doona ina ciidii saaxiibnimo naga doontana saaxiibnimada waa ku wanaagsanay cidii la faragelisa oo cadaawad la timaadana wax iska celiskana waa ku fiicanahay nabadii buu la wareegay cidii nabadda abuureysay oo gacanta ku haynaysay buu noqday roorkii salaadiintu lahayd roorkii waxgaradka beeshu lahaa roorkii uqaashu lahaa buu maanta hayaa ciidanka qaranku wuxuu markii duco socon weynay awoodiisa ku gaaray inuu kala dhex fadhiisto oo yidhaa shaydaankii la naari waayey xabaduu ku dhaarmay deeg baa hadda ku hayaa jeebkayga madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo isagoo tilmaamay ahmiyadda weyn ee ciidamada qaranka Soomaaliland ugu fadhiyaan qaranka hambalyo iyo bogaadin ballaaran hawada u mariyo dhammaan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxaan ducaynayaa dhammaan geesiyaashii shahiiday waxaan eebba uga baryayaa inuu u dabadhaafo naxariis jannada ka waraabiyo duco qabayaal dawladleelkii qarnimada Soomaaliland ee shirki burco iyo ururintii ciidanka beeleedyadii dalka ku kala fariisanaa ee lagu tallaabsaday waxay suurtagelisay asaaska ciidanka qaranka oo ay maanta ku jiraan kuwii xilligaa dhashay ama dhallaanka ahaa tallaabadan waxay xaqiijisay in la dhisay ciidan qaran oo cududiisa lagu ciilbaxo waxaan u hambalyaynaa madaxdii iyo mas-uuliyiintii horumarka aboodka ka ahayd in la uko ciidanka qaran si gaara waxaan u xuseeyaa madaxweynihii labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal iyo madaxweyne ku-xigeenkii mudane Cabdiraxmaan oo Cali Faarax kuwaas oo lahaa hal abuurka himiladan qaran ee lagu hana qaaday sidoo kale waxaan sheeyaa taliyaha asaasay ciidanka qaranka taliya Xasan Cali Abukar iyo marxuum Suldaan Maxamuud Suldaan Faarax oo aan la ilaawi karin sidii geesinimada lahayd ay ugu dhiiraday isla markaana tusaale noqday dad hortii inuu fagaaro ka qarameeyo hubkii iyo ciidankii ay gaarka lahaayeen caqabayaal xogaal ayaad ka tihiin in xukuumadda ama madaxda ka ahay ay jahdi weyn gelisay dhismaha ciidanka qaranka kow waxaanu kordhinay muddo 6 sano ahayd ciidamada iyada oo la qarareeyay lana howlgeliyey colaal iyo cutubyo badan oo cusub laba waxaanu ka hor qaadnay tayada iyo tababarka xirfadda ciidanka saddex waxaanu keennay agab fara badan oo isugu jira gaadiid iyo hub kaasoo kobciyey awooddii iyo baraalkii ciidamada afar ciidanka aan kala lahayn sarkaal iyo subeehi muddadaa ku siman 20 sannadood waxaan mid kasta siinay darajadii u mudnaa taasoo loo maamulay hab cadaalad iyo cilmi ku dhisan shan waxaanu tiraba 3 jeer kordhinay mushaarka ciidanka qaranka 6 dhinaca kale waxaanu u samaynay ciidamada jiida hore gudno gaara oo lagu daryeelayo ama lagu xanaaneynayo waxaa naga go-an inaan ilaalino qiimaha darajada ciidanka qaranka isla markaana aan loo bixin nidaam ku dhisan siyaasad iyo dana gaara Nishaad Farxaan Ali Star TV Hargeysa